السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا muuqaal cusub maanta waxaan wada casriyo fudud afar qaanto oo sokor ayaan soo diyaarsaday iyo laba xabo mooskana waa moos bukeeni ama mooska oo macmacaanka loo isticmaalo ama sambuuska lagu darsado taawada ayaan dabka soo saartay waxaan marsaday wax yar oo subag ah subag oo ilmaha uu wanaagsan yahay marka waa kaas subag ilmaha loogu dadaalo hadana waa soo safanaya markaas soo safta kadib dabkan inaad u gaabisid ayaa muhiim ah si uu kaaga gooni oo kala qurux badan oo kugu noqdo fitamiiniskan oo kaaga dhimanay marka dabka usoo gaabiyo hadana waxaa kusoo shubay sokortii aan soo diyaarsaday wax yar ayaan isticmaali doonaa sokortii aan kusoo bilbilay kadibna waxaan ku dari doonaa insha Allah heel marka waa kaas subag yar aan kor ka soo marsanaa maadaama labada dhinac isku midab inuu noqdo ayaan rabaa dabkan uu gaabsan yahay marka waa kaas sidoo kusoo baxana waa isla arki doonaa si qurux badan ayuu noqonayaa ilmaha loogu dadaalo waa casriyo oo fitamiinis leh oo ilmahana ay kugu caylayaan ama kushkush ay kugu noqonayaan hadana waxaa kusoo darsaday heelkan waa heel budo marka heelka caraf yarna uu sameynaya ilmaha way ka helayaan wayna kugu caylayaan inay ilmaha ku caylaan ayuu ka qayb qaataa heelka marka caanaha iyo cabitaanka iyo in loogu daro ilmaha wanaagsan ama saan oo kale marka macmacaan uu sameynaysa inaad ugu dartid marka waa kaas maalinba nooc uu sameeyo casriyo ilmaha kula korinaysa muhiim ayay u tahay cunugaada markuu qadeeyo inuu helo wax yar oo fudud oo cunaa galabtii insha Allah marka ilmaha casriyaha la siiyo uma eka ilmaha kale marka casriyaha loogu dadaalo maaha wax badan inaad siisid wax yar u sameyn kartaa maalinba nooc ama 3 bir kadib waa u sameyn kartaa waa kaas maanta waxaan sameynayaa moos bukeeni casriyo qurux badan oo ilmaha ay ka helayaan marka soo diyaarsadaan qurux badan ayuu ku soo baxay waa ku mahadsantihiin soo booqashadiina page-ka follow inoo dhaha like inoo saar muuqaalka daakaysa noo sii share garee si arkaan dad fara badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.